A person, he has ambition, but he has no knowledge of the religion. And it is said that this category, whatever they're called, they have a lot of energy, they want to do good for the people, but they're not doing it the proper way. And it is said that the other person is a person he has knowledge, but he just keeps it to himself. So the best person is the person who has knowledge and he has ambition. So he is gaining knowledge, at the same time he's making sure that everyone benefits. Everyone is going up to the next level. So my advice is that all of us should be that kind of person who also knows his Lord, he knows where he's heading, he knows what he wants in life and the hereafter. This is the kind of person that all the youth should be. And that's my advice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة waxaa joognaa magaalada Columbus. waxaa nasiib u helnay in aan la kulano odayaal iyo aqoon-yahano oo degan Columbus Ohio. waxaa ugu horeeya galabadii waxaa ka mid ah Mr. Darius waad wada garanaysaan. waxaan rabnaa inaan ka wareysano sidii ay soo qabteen ama sidii ahaayeen ururkii Soomaaliyeed oo la oran jiray SYL iyo waxyaalahay soo qabteen. Darius, su-aasha ugu horeysa aan weydiinayo waxay tahay SYL sidee ku timid? waa mahadsantahay. haddaan su-aashaas aan ka baaro waxaan dhihi karaa intaan ka ogahay ama aan ogaalkeeda leeyahay waxay ahayd 13 dhalinyaro ah oo ka dhiidhiyey dhibaatooyinkii markaa isticmaalka ku waday dalkeena una istaagay inay dalkooda ka badbaadiyaan isticmaalka gaarsiiyaan xorriyad ay gaarsiiyaan nasiib wanaag dagaal badan iyo dhib badan markay la kulmeen iyaga xorriyada maanta aan hoo saarsayn iyagaa dhaliyey iyagaa lahada xorriyadaanu maanta ku cayaarnay waa raggii dhaliyey umalayn mayana iyagu kale inay dib noogu dhalanayaan. sidee aad umalanaysaa inaan kusoo celin karno niman iyagoo kala ah ama aan u diyaarin karno? sidee aad umalanaysaa inaan u geli karno hawshaas? wallaahi maanta dadka jooga haddaan picture yar ama sawir yarkaas xaaladda maanta aan marayno dalkeena aan sheeko yar kuu sheego. waxaa jiray geed haweyn oo beesha deeqsi u ahaa. geedkii isaga ahaa markuu qalalay oo dhintay dadku iyagoo garwaaqsan waxtarkii geedka kana xun dhumintiisii ayaa nin waliba goynayaa, nin walibana la galbanaya ilmadiisa xaabada. intaa waxaa soo raaca shimbir yar oo ku dulmeeraysanaysa geedkaa dhacay hamadiisa iyadoo raadinaysa dhulkeedii iyo maxankeedii. micnaha waxa weeye waxaa la rabay geedkaas wuxuu ahaa qarankii waa dhintay. qof kasta wuxuu leeyahay waan ka xumaa isagoo garwaaqsan qarankeena ku dhuma. at the same time waxaad arkaysaa nin kasta gudin iyo gudin wataa oo wuxuu rabaa inuu xirmadiisa xaabada ah uu la galbado oo uu shito caawo. waa dadkaad aragtay madaxdeena shimbirta yar oo kuu sheegaya sawirkan ku siinaya waxa weeye waa carruurta iyo haweenka iyo maantada ku balaabalaysa xerooyinka qaxootiga oo weli raadinaysa gurigoodii iyo buurkoodii iyo waa mahadsantahay Mr. Darius. su-aasha ugu dambeysa aan weydiinaya waxaa waaye waa ogahay inaad tahay guddoomiyaha dhalinyarada Columbus. aad shaqo aad u culusna aad u hayso community-ga. maxaad kula talin lahayd dhalinyaro badan oo waxaa jira waxbarta oo magaalada nala jooga oo jecel sidii uga qaban lahayn waddankooda? maxaa kula talin lahayd ugu dambeyntii? waadow su-aashaa waxay weydiiyey muddo anoo xero qaxooti ku jira ayaa habeen macallin Siciid Saalax wuxuu weydiiyey diriyow waxaa tahay farshaxana waxaa tahay waa inaad siciidna waa adwaan weeye waa gabi waa inaad
tiraysaa gabay inaad tirisa anigu weligay kuma fakerin inaan laba xaraf oo Soomaali ah laakiin qofku gabayga markii uu qasbo anigu ma gabiyo laakiin dareenkaygii markaa yahay ayaa waxaan isweydiiyey saddex su'aal oo taasoo ay ka mid tahay waxay dhalashadu ifay in aniga Soomaali u dhasho maxay igu waajibay waxay dhalashadu tari inaan wax yani barto inaan reer yeesho inaan guuliso maxay yani tari maxay dhalashadu ku tiri yani nin walaalkii jiro maxay ku tiri su'aalahaas markaa waxay ahayd iyo anoo xerada oo taagin dhex joogo roob waxay su'aalihii markaa madaxayga ku wareeganayaan waxaan yidhi hadda ma wada xasuusto waagii meel baan ku qoray su-aasha ugu horeysa oo maxay dhalashadu fari inaad Soomaaliya u dhasho markaasa waxaan ugu jawaabay dhalashadu waxay ku faraysaa inaad dhulkaada maanta ka dhowrtid inaad ku dhaqantid inaad hormarisid inaad daacad aad u ahaato maxay tari inaan reer yeesho dhaqashadu tiri dhaqasha waa udubkeed moogtahay waa inaad xaas kustaan waa inaad caruur dhashaan waa inaad farcantaan maxay dhimashada ku timi dhimashadu waxay ku timi yani walaalkii ku dhimo yani inaad qofku dhinto waa dhacda eebadigeedu waa dhabtii lama meegaanka ahaa lama dhaafaan ha yeeshee dhibaha yimi maanta oo yaalla dalkeena yani waxay dibda lagu baxsheen dhaqaale iyo dhaqan dhisma dadkeena ku dhaayan jiray ama sabtaay diris warahmatullahi wabarakaatu soo dhawaada videogan aan rabay inaan idin share gareeno waxay la fadhidaan Nafisa oo aan rabay inaan couple questions aan weydiiyo Nafisa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo what do you think dhibaatooyinka Columbus ka jira oo Soomaalida ku haysata how can we overcome especially youth ka dhibaatooyinka ku haysata sida hadda gang violence iyo drug usage ku kala community-gana way kusoo badanaya waxyaalo badan oo weligeeda aan la maqlo hadda community kusoo kordhay what do you think we should do and raise our kids better just like we were back home? You should start from the parents, like I said. Okay. Starts from the beginning, which is the home. Okay. The main problem for me in the Somali, they choose bad neighborhood to begin with. Mesh صح. drugs are available, gun, violence, anything. Street violence. To Hirani and Melbourne, they don't think of the long run, invest on their kids. ما في عايز تجان في عن schools في عن and so forth. So how can I say more allowed? Okay. So horta waa ku raacsanahay boqolkiiba boqol environment-ga qofka isbedel badan oo ku samayn kara oo they can change their behaviors. Marka haddii la helo solution maadaama hadda runta hadii loo hadlo dad badan oo waxaa jira aanan awoodin in environment-ga ay ka guuraan maybe financial reasons. What do you think or alternative or that might have some type of solution to actually counterattack those problems? And then pay attention to the kids, to their activities. Okay. Activities should involved in the school, after school programs, where they are. Don't just drop them over Eastern Mall and then 5 hours later it's all Korea. That's the worst problem ever. And what do you think? I've noticed in Arut Somalia most of them, it looks like in Somalia, in other words, they're basically being very, very Americanized. What do you think should be done, and how can we educate them in terms of, hey, you're Somali, number one, and there was a country called Somalia where we came from, and this is the history. You know, how can we get back to that era where, you know, a person can look themselves and say, you know what, I'm Somali. You can't fix it at least for you. Actually, there has to be a Somali programs, or Somali history, or Somali anything. That's just
being the mature so they don't put any efforts towards the kids. صح. So this halkas kabilawan, and I think the main thing it has to come from the parent. Because I think don't go to real Somali and quite catch it. I think this was shaking and with a foul, calling each other bad names, and that kind of I think you should, you know. Somali ko hadla sida ta kale laga arkaan afkale na ku hadlaysan hada hoos u hadla xataa صح. they give me the eye because hooyadu me aabahooda me who am I to them صح. in an ayda ku sheega ma aan waaniyo ama aan wax ku dhaho ama culture-kooda whatever صح. some of them they do dress like Somalis goonadi bay xiran yihiin qamaarka bay xiran yihiin but they calling each other's bad names صح. waxa u taqaansada waa so صح. the parent has to emphasize that. So basically, inkastoo mataqaanaa carruurta iskuul aadayaan, the way I was taught was 30% ayuu cunuga iskuul wax ku bartaa laakiin 70% guriga ayuu ku bartaa parenting ayaa wax bara. So parenting hadda meesha ka maqan yihiin, that means cunugaasita waa loo yaabaya. That is true. waxaan rabay inaan xoogaa yar aan ka taabto. One of the main reasons aan ku sameeyay videoga ayaa waxay ku saabsan tahay they were a group of organization called SYL back in the 40s, back in Somalia. Group-kaas waxay ka tirsanayeen 13 oo dhalinyaro oo isku imaaday oo goolkooda ahaa in ay mataqaanaa ay ka saaraan wadankooda gumaysiga colonialism waqtigaas wadanka ka jira. So as we know, there are also problems in Somalia hadda. It's not the same problem, but it's just different, different problems. How can we find people like that, people who can come together and say, you know what, these are the problems, we need a solution. And what do you think, do you agree with me first of all in terms of having youth to take the lead instead of depending on elders, who most of them are, using qabeels, to run the countries. Do you agree with me on that? 100% they are loose cannon. That's the below. You guys are doing a wonderful job. What you doing, you just need a few more and then you're on your own. Absolutely, I agree with you. And I want to thank Mr. for taking the time to actually answer some of the questions that we had. And this is the end of our segment here. Thank you very much. waxaan ku sugannahay magaalada Columbus. Caawa waxaan nasiib u helnay inaan la kulno Dr. Cabdulqaadir Cali Cabdi oo loo yaqaano Xur. Xurku wuxuu ka mid yahay dhalinyarada cuslaatay wuxuuna yahay dadkii ugu soo horeeyey oo lagu soo dhaweeyey magaalada Columbus. Xurku soo dhawow barnaamijkan aan ugu sameynayno dhalinyarada SYL. waa mahadsantahay. su-aasha ugu horreeya aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye sidee ama wax ma noogu sheegi kartaa waxay ahaayeen SYL iyo waxay qabteen? horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. SYL haddii marka hore la fasiro waxaa waaye Somali Youth League ayuu ka taagan yahay xarfahaas. waxayna ahaayeen dadkii u soo halgamay gobonadooonka Soomaaliyeed laga soo bilaabo sodomeeyadii ilaa iyo xurmada aan ka qaadan lixdameeyadii. dadkaasi waxay ahaayeen niman dhalinyaro ah oo ka kala yimid Soomaaliya oo dhan iyagoo aan isu fiirin qabiil iyo mataqaanaa haybad qabaa'il ama isku factirin ayay ahaayeen. raggaas waxayna mataqaanaa wax weyn ka qaateen in ay isu keenaan Soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo xurnimadeeda. waa mahadsantahay. ma noo sheegi kartaa in aad la kulantay ama aad aragtay oo nasiib u heshay qaar ka mid ah 13 SYL? waxay markaas in markaas cimrigaaga uu yahay haddaad aragtay SYL nin weyn oo mataqaanaa la soo shaqeeyey. SYL matter of fact waxaan arkay nin la yidhahdo weyne oo joogay Ottawa waan mar la kulmay iyo nin la yidhahdo mataqaanaa sheegay dheere xaaji dheere oo asna xamar ku arkay mar. that was waqti dheer ayay ahayd. rag kalena waxaa jiray rag early mataqaanaa sheegay markii xurmada la qaatay geeriyooday markii soo halgameen xurmada la qaatay xataa aan ahayn dad goobjoog ah markaas 13kaas SYL waxay ahaayeen rag mataqaanaa sheegay Soomaalinimada ay dhab ka tahay ma ahayn dadka mataqaanaa maanta